wuxuu ku yaalaa sida xaafadan waxaan rabnaa labadoodaba inaan tagno oo aan soo aragno marka hadda waxaan ku soconaa wadada eelaboorka aan degeyn doonaa kadib waan kasoo laaban doonaa isbitaalka magaalada aan degeyn doonaa waxyaabaha xaafadan ay gaarka u leedahay oo iyadan leedahay ayay ka mid yihiin marka maanta waxaan joognaa xaafadda Horseed xaafadan waxay ka mid tahay xaafadihii qadiimiga ee magaalada ku sameeyay isbuucii hore waxaan idin soo sheegnay xaafadda waa bari oo wax badan ka soo gaartay maanta waxaan joognaa xaafadda Horseed ee waxaan wax badan ka soo gaartay xaafadan waxay kaga duwan tahay maadaama hore idinku sheegay xaafadan inay tahay xaafadaha ugu wanaagsan magaalada oo xagga deegaanka ama deganaanshaha waxa ka dareemay qaab dhismeedka ay leedahay xaafadahan waa qaab dhismeedyo oo u muudin maxaa la yiraahdaa in laga baaraan degay ama qaabku u dhisan yahay waa qaab another level ah marka waxaan rabaa inaan hore u sii galno wax badan aan ka sii ogaano xaggan waxaan naga xigo qabuuraha xaafadda inta dhimata Allah u naxariisto waxaa ka sii dambeeya xaafadihii kale ee magaalada guriyihii kale ee xaafadda marka soo dhawaada intaan fiidiyogan duubay waxaa la kulmay ismahan idin muuqdo ismahan waa xilli hore waa muddo hore waa siyaad baro waxa deganaan jiray ciidanka waa dhismooyin kamid ah dhismooyinka ciidanka ee kuwa marka giraanteedii intaan imaano waqtiyada fasaxa ismahan waxa ka dambeeyo garoon yar garoonkaas marka waqtiga ku qaadan jirnay waa ku ciyaari jirnay kubadda cagta hadda muddo ka soo wareegtay almost waxa ka soo wareegtay 12 sano ma tagin nasiib weeye hadda aan iska socdo waxaan gartay derbiga marka gartay waxaan jeclaystay inaan idin sheego waxaan isku dayaa inaan galo bay macquul tahay tan gali waayana waxay noqon inaan ka soo gudubno laakiin waxa waaye waa taariikh ajaayib ah muddo ay ugu dambeysay nasiib waxa uu yeeshay inaan la kulmo marka aad aan u faraxsanahay xaafadan hodan ay raadee Horseed waa xaafad maxay leedahay ku socoto dhismooyin aan caadi ahayn xad dhaaf ah inna awal markaa ka eegtid waa wada qabiyo waxay ku sheegaytaa xaafadan inay ku socoto horumar joogto ah runtii dhismaha xaafadan ma aha mid la soo koobi karo xaafadan Horseed waa another level dhismooyinkeeda ma joogsanayaan waa xaafad mar walba oo dadka jecel inay maxaa la yiraahdaa soo degaan maxaa yeelay waa xaafad taaga badanaa markuu roobka da'o kale biyaha ma fariistaan roobku markuu sidaa u da'o waxay fursad ku helayaan inuu biyahaas ka baxo dhulkuna nadiif uu ka sii dhigo waxaan la yiraahdo dacweynaha magaalada waxaa moodaa inay aad ugu soo badanayso gaar ahaan xaafadan Horseed xaafadaha qaar markii laga soo tago guryaha dhagaxa waxaa arkay guryo qaab dacweynaha u samaysan shingadahan dhaadheer oo balbalaaran ma soo dhaweynayna ay raadee Horseed waxyaabahay caanka ku tahay waxaa ka mid ah ku yaalo oo gaarka iyadoo tahay isbitaalka magaalada ugu weyn ama isbitaalka maxay leedahay magaalada Boosmareebet wuxuu ku yaalaa xaafadan Horseed sidoo kale xaafadan waxaa ku yaalo eelaboorka magaalada
sidoo kale magaalada xaafadan horseed asaasiga xagga nolosha waxaa moodaa inay u dhammaystiran tahay ayadoo leh korontadii internetkii iyo warshadaha kale oo caadiga ah halkaas waxaa ku taalo warshad ka mid ah warshadaha xaafadan ayadana goonida u leedahay magaalada Dhuusamareeb ku yaalaan warshadan waxay soo saartaa barafka sidoo kalena korontada waa laga dhaliyaa sida idin muuqato wuxuu ku yaalaa halkaas waa maxaa la yiraahdaa albaabkaas buluuga waana idin mar waa ina hortiisana mari doonaa xaafadan waxyaabaha aan ku jeclahay jawigeeda dejisan yahay waxa waaye waxay leedahay dhulal banaan oo ay dadku waqti ku qaadan karaan hadda waxaan joognaa dhul banaan jawigiisa degan yahay iska cagaaran roobkii loo daayay naqiisa waa afka hore dhulkuna wuu cagaaran yahay xoolaha dhinac walba ka joogo warshada geeskeedaan joognaa marka iska jeclaysay inaad meeshaan xoogaa joogtid iskaga fakartid oo waqti iskaga qaadatid naftu waxay ku leedahay iska joog galabka inta ha kuugu dhaco jawiga iska dejiso marka waa ku qanacsanahay xoogaa inaad inta waqti ku qaato gaar ahaan xaafadan horseed waan taageeraa xaafadan maxaa yeelayaa maadaama ay ka mid tahay xaafadihii hore ee magaalada sidoo kalena xaafado ku habboon xagga deegaamaynta ama dadka inay degaan waa xaafad taaga magaalada Dhuusamareeb xoogaa waxay ku dhiban tahay xilliyada roobka oo kale xaafadaha qaar biyo galo insha Allah xaafadahaas waa inay geyn doonaa marka xaafadahan waxay ka mid tahay xaafadaha lagu soo badbaado xilliyada markay biyahaas oo kale ay yimaadaan xaafadaha la yimaado si waqti loogu qaato biyaha ka dhamaanayo xaafadahaas kale barnaamijyo kale aan uga warami doonaa arrimahaas marka وقت السيادة